waxaanu sii wadnay baaritaankii bal qaybtii kale ee marxuumka iyo marxuumadda oo magaceeda la odhan jiray barwaaqo cali Salebaan 20 jir bay ahayd laba caruur ayay haysatay wiil iyo gabadh waxaanu markaas sii wadnay baaritaankii si aanu helo bal qaybtii kale ee marxuumadda oo ha qaarka dambe arintaasi waqtiga ayada ah bixin kooban oo ku saabsan dil fool xun oo ka dhacay gobolkan Saraar jiida degmada Og dilkaasi wuxuu dhacay 4tii bisha 2024 ciidanka biliiska waxa lagu wargeliyay oo dilkaas uu ka war helay 7dii bisha 12 buu ka war helay ciidanku isagoo loo soo sheegay in laga helay mayd magaalada Badweyn halkaas ay ku taalo Badweyn oo biyo weyn oo iska fadhiya oo Ilaahay maaragtay meesha ka soo saaray maydkaas oo badda ka soo caariyay waxa arinta runtii markiiba degdeg si degdeg ah nooga howlgalay waxaan ugu tagnay goobta maydka oo muddo la raadinayay 3 casha ehelkii maydka marxuumad halka ku jirtay ehelkii iyo dad badan oo markaa maaragtay taagan badda dusheeda ciidanka biliisku markaaba wuxuu bilaabay waajibkiisa shaqo ayuu bilaabay wixii hawlaha waajibaad uu ka gudanay uu ka gutay badda ayaa lagu riday muddada 4tii bisha isla habeenkii 4ta bisha ayaa lagu riday waxaana markaa ka soo caariday 7dii bisha ay ka soo baxday oo biyo soo tuureen meedkaasi wuxuu ahaa haaf buu ahaa qaarka sare oo kaliya ayuu ahaa runtii halka markiiba waxaanu galay baaritaan xaas bay ahayd min qabo laba caruur oo leh ninkaasi reerka muddo ka maqnaa xogaha markii aanu helay waxaanu markiiba aanu gacanta ku dhignay eedaysanihii xaaska ninkii qabay oo magaciisa lagu magacaabo eedaysane Shucayb Cali Xasan oo markaas 30 jir ah ayaanu gacanta ku qabanay kadib waxaanu u dhaqaaqnay jiidii dilku ka dhacay oo xawaalay inuu jirta meesha ilaa dhowr iyo 10 kilomitir ayaanu u dhaqaaqnay waxaanu sii wadnay baaritaankii bal qaybtii kale ee marxuumka iyo marxuumadda oo magaceeda la odhan jiray barwaaqo cali Salebaan 20 jir bay ahayd laba caruur ayay haysatay wiil iyo gabadh waxaanu markaas sii wadnay baaritaankii si aanu helo bal qaybtii kale ee marxuumadda oo ha qaarka dambe arintaasi waqtiga ayada ah waanu ku soo hongownay maanaan helin qaybtii labaad raacdo dambe oo aanu u noqonay 8dii bisha waxaanu ku soo helay maryaheedii oo dhammaystiran marka laga reebo diric oo garadii surwaalkii garbasaartii masaradii kabihii waxaas oo dhan oo iyaguna yaala tuulo la yiraahdo Baraqaawi agteeda yaala oo goobta dilku ka dhacay u jirta xawaalayn ilaa adigu 2 kiiloomitir u jirta ayaanu ugu tagnay maryaha dhacdadii saddexaad iyo baayidoonkii saddexaad waxaanu ku soo helay qaybtii labaad ee marxuumadda oo iyadana lagu riday barkad dadan oo biyeysan oo ku taala tuulada la yiraahdo Baraqaawi oo meesha goobta dilku ka dhacay u jirtay ilaa 2 kiiloomitir distance-ka labada mayd marxuumadda hilbaheeda lagu kala riday ilaa 15 kiiloomitir bay isu jiraan waxayna ku kala yaaleen gobolada Saraar iyo Sanaag bay ka kala tirsan yihiin gobolada Saraar iyo Sanaag ay ka kala tirsan yihiin degmooyinka Caynaba iyo Garadag arintaasi runtii waxay ahayd dhacdo fool xun oo si waxashnimo loo sameeyay arintaasi waxa weeye sidii loogu talagalay ayaa biliisku waajibkiisa u gutay hawshana runtii waxaan halka uga mahad celinayaa kullay dadkii aad iyo aad noola shaqeeyay maaragtay ama ehelkii marxuumadda
iyo dadweynihii ku dhaqnaa jiidahaas oo si wanaagsan baaritaankii iyo baadgoobkii noola qaybtay ilaahay mahadii waxaa si buuxda loo wada helay marxuumadda ilbaheedii marka laga reebo calooshii laga reebo oo iyada aan weli meel uu ku tuuray aan lahayn kiiska waxa loo u xiran ninkii qabay gabadha oo leeyahay Shucayb Cali Xasan ayaa u xiran isaga ayaa runtii kulay biliisku hadda u haya baaristiina way socotaa waxaan ku rajo weynahay in ay deesi dhaqso u soo gabagabowdo isagiina xabsiga noo gudbinay waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa ciidanka biliiska iyo oo si weyn muddo 3 casho xiriira arinta Ilaahay ku soo fududeeyay oo hawlgal buuxa galay